marka ninkii dagaal ayuu ka bixi waayay maalin walba asiga iyo naagtii way isdagaalayaan naagtiisu waxay ku adkaysatay haddii jiimkan iyo howshan aadan joojin anigaa guriga ka baxaayo dagaal dheer ninkii wuxuu go'aansaday hooshii uu ku jiray iyo jiimkii inuu joojiyo si gurigiisa uu uga dudumin asxaabta waxaan arkay wax iga yaabiyay runtii arintan aniga way igu cusub tahay muddadii la soo dhaafay way soo laabatay 3 bilood ee u dambeysay dhowr qofood oo aniga aan coach u ahay ayay ku dhacday soo dhawaada minikini waaye adiga walaashay walaalkay hadda channelkan ku cusub tahay aniga magacayga waa Cabdinaasir waxaan suubiyaa fiidiyo ku saabsan jirdiska iyo raashinka fiidiyoga inta uu guda galin waxa si sharaf leh kaaga codsanaa fiidiyogan like na saartid comment ka soo bixisid asxaabtaada u share gareysid hadda subscribe hina wali subscribe leh waa ogtahay subscribe-ka lacag la'aan waaye mideeda kale waa ogtahay dadkeena dad badan oo arimahan xiisanayaan kuma jiraan marka adiga fiidiyogan fiirsanayo hada like saarin comment ka soo bixin asxaabtaada u share gareen qof kale ma suubinayso mahadsanid muddo hadda laga joogo 2 bilood iyo bar waxa ila soo xiriiray walaal Soomaaliyeed oo rabo aniga inaan coach u noqdo walaalkan aan ku sheegayo ma ahan qof waligiis wax sporti ah hore u suubiyay walaalkan intii uu noolaa waqtigiisa hal saac oo kamid ah waligiis caafimaadkiisa muusan gelin wuxuu ii sheegay wax kasta oo gacanta laga suubinayo inay dhib ku tahay xataa guriga jarajaradiisa markuu kor u soo koraayo inay dhib ku tahay waa wada hadalnay waa heshiinay markaas kadibna coach u noqday walaalkaas goolkiisa wuxuu ahaa ama hamigiisa wuxuu ahaa 30 kiilo inuu iska rido isla markaana murqalisto hooshii waan bilawnay markii muddo 2 bilood ah hoosha aan wadnay walaalkaas wuxuu iska riday ama waxa uu suurta gashay inuu iska rido 13 kiilo oo baruur ah markii intaas oo miisaan uu ka dhacay walaalkaas kalsoonidiisa kore u soo kacday wuxuu bilaabay dhar cusub inuu soo gato inuu labisto inuu banaanka u baxo asxaabtiisa waqti la qaato marka ninkan waa nin family ah wuxuu leeyahay xaas iyo 2 caruur ah meeshan waa meesha uu dhibka ka imaanayo xaaskiisa markii aragtay isbedelka ninkan uu suubinayo ninkan uu miisaan iska riday bilaabay dhar cusub inuu soo gato labisto banaanka u baxo asxaabtiisa waqti la qaato kalsoonidiisa kor u kacdo markaas kadib xaaska waxay suubisay ninkii way la dagaashay iyadoo u maleynaysa ninkan sababtu waxaan oo dhan u suubinayo inay tahay inuu rabo naag iyada ka yar marka ninkii dagaal ayuu ka bixi waayay maalin walba asiga iyo naagtii way isdagaalayaan naagtiisu waxay ku adkaysatay haddii jiimkan iyo howshan aadan joojin anigaa guriga ka baxaayo dagaal dheer ninkii wuxuu go'aansaday hooshii uu ku jiray iyo jiimkii inuu joojiyo si gurigiisa uu uga dudumin markaas kadib anigu ila soo xiriiray horta intuusan ila soo xiriirin ninkii muddan waay weegdan warkiisa ma maqal waan wacay ima soo wicin masjida u qoray ima soo jawaabin muddo kadib uu soo wacay uu ii sharaxay dhibka heesto dabcan waa fahmaa nin rabo male gurigiisa inuu dudumo laakiin qisada asiga ku dhacday ama dhibka asiga ku dhacay hadii aan igu dhici lahayd go'aanku asiga qaatay mid ka duwan ayaan qaadan lahaa bal adiga fiidiyogan fiirsanayo hadii ninkaaga ama naagtaada ay ku dhihi lahayd jiim aadi kartid maxaa suubin lahayd bal commentiga igu soo qor dhibka jiro wuxuu yahay walaashan ma fahansana ninkeeda haduu caafimaad qabo iyada farxadeeda waaye fiiri ninkaaga haduu eg yahay buskut dhinac laga cunay markaas taas macnaheedu waxay tahay ninkaaga levelka testosteronigiisa uu hooseeyaa markaasna sariirta wuu ku xumaanaa adigana taas faa'iido ma kuugu jirto fiiri ninkaaga markuu isku kalsoon yahay jir qurux badan qabo xoog leeyahay adiga ayay taas farxad ku tahay xaqiiqada waxay tahay hadii ninkaaga buskut dhinac laga cunay uu eg yahay maanta dhan ku ag fadhiyo kursiga ama fadhiga TV fiirsanayo markaas ninkaaga xataa ma qiimeynaysto qiimeynina ayaa meeshaas ka baxaayo bal adiga tan isweydii adiga iyo ninkaaga oo meel isla maraayo haduu qof idin dulmo maxaa suubin lahayd ma qayline yaa Soomaaliyo oo ima leedahay fuck no aniga shakhsiyan waxaan aaminsanahay ninka inuu ahaado monster inuu ekaado wax laga cabsanayo ama khatar aan lagu degdegi karin taas macnaheedu ma ahan inaad tahay qof edab daran oo dadka dulminayo waxa kale loo baahan yahay xoogaaga inaad xakameyn kartid isla markaana si edab leh aad dadka ula dhaqantid 3 bilood la soo dhaafay waa ninkii labaad aan arkayo naagtiisa u diiday inuu jiimka aado marar badan waan arkay dumar ninkooda u diiday inay jiim aadaan dabcan markaan dumar ku dhaho waxa isleedahay ma jiro nin rabo naagtiisa meel niman kale joogaan inay ku boodboodo taas run ma ahan dumarkan aan ku sheegayo
waa dumar si fiican ugu dhagan diintooda iyo dhaqankooda. dumarkan aan kuu sheegayo waxay aadaan jiimam loogu talagalay dumarka bes, iyadoo cawradaada asturan tahay ayaa training gareyn kartaa. dumar badan asturan diintooda ku dhagan isla markaana training gareeyay oo trainingka meel fiican ka gaareen ayaa jiraan. marka inaad tahay qof Ilaahay ka cabsanayo kuma xirna inaad gym aadid iyo in kale. gymka caafimaad loo tagaa, wax kale ma loo tago. waxaa xaqiiqo ah raggan aan kuu sheegayo ma ugu diidin dumarkooda diin darteed. sababtay ugu diidan waxay tahay raggan rag isku kalsoon ma ahan. kalsooni daradooda ayaa waxay tusisay naagtan hadday isqurxiso inay ka tagayso. fiiri, waxaa kaloo xaqiiqo ah qofka aad la nooshahay, ninkaaga, naagtaada, hadduu yahay qof aanan isku kalsooneen ama qof aanan isku kalsooneen hadday tahay, ma ku farxayso wax yar horumar haddaa suubisid. idhageyso walaashay walaalkay, ha noqonin qof xaasid ah. haddii ninkaaga ama naagtaada ay rabto in caafimaadkeeda wax ka bedesho, ama haddii ninkaaga rabo caafimaadkiisa inuu wax ka bedelo, fadlan taageer. iyada farxadeeda adiga farxadaada waay, asiga farxadiisana adiga farxadaada waay. marka istaageera. waxaa kaloo ogaatiin jir caafimaad qabo ayaa keeno maskax caafimaad qabto. jiimka waxaa loo suubinayo caafimaad dartiis waay. marka caafimaad qabtiin waa shaqaysan kartiin, ilmihiinana si wada jir ayaa si fiican ugu korsan kartiin. asxaabta videoga intaa ka bixin, haddaa rabtid coach inaan kuu noqdo, diyaar aan ku ahay, coach waan kuu noqonaa. markaan ku dhahayo coach aan kuu noqonaa macnaheeda ma ahan program inaan kuu suubiyo kuu soo diro meeshaas iskugu keen dambeynayso. processka dhan waa kula soconaa, noloshaadaan ka mid noqonaa, wax kasta oo khaldamo anigaa bedelayo, motivationna waa kuu noqonaa. marka haddaa rabtid coach inaan kuu noqdo waa kuu noqonaa, ila soo xiriir. waxaa igala soo xiriirtaa emailkan. asxaabta daawashada videogan daawateen aad iyo aad u mahadsantihiin. ha iloobina videogan like-na saartaan, comment ka soo bixisiin, asxaabtiina u share gareysaan. haddaa weli subscribe dhihina fadlan subscribe dheh. waa ogtihiin dadkeena dad badan oo arrimahan xiiseynayaan kuma jira. marka adiga videogan fiirsanayo haddaa like saarin, comment ka soo bixin, asxaabtaada u share gareen, qof kale ma suubinayso. mahadsanidin. waxaa noo balana videogan videoga ku xigo. ballanteena waa caafimaad iyo muruq.